qaarkood idaacadahay la taagan yihiin ma qarinayaan isma qarin karaan xataa fiidowyaashii khawaarijta ayay intay cod soo kor saartaan iyagoo magac Soomaaliyeed sheegaayo ayay laamiyada la taagan yihiin xishood darro dartiis qaarkood iyagoo isku sheegaya inay ka danqanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ayay fidna ka dhaxwadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ma xishoonayaan diin male dadnimo male Soomaalinimada jirkooda kuma jirto xumaan wadayaashaas shar wadayaashaas oo aanan khawaarijta darajo badan dheereen waxaa la rabaa inaynan quluubtiina wax gaarsiinin cadowga ummadda Soomaaliyeed waa hal waa khawaarij ninkii khawaarij kelimad ugu gargaara ninkii maal ugu gargaara ninkii dhiiri geliya khawaarij waxba ma dhaamo culimada hore uga fatwootay intay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho khawaarij ninkii maal ku deeqa ninkii fikir ku deeqa ninkii taageero kale ku deeqa ninkii buubuuniya waxba isma dhaamaan waa khawaarij kale ummadda Soomaaliyeed ee ku keedsoomina nimanka idaacadaha taagan YouTube-yada u furtay khawaarij inay dhiiri geliyaan ha ku keedsoomina ciidanka xoogow ha ku keedsoomin khawaarijta kuwa afkooda ku hadlaaya shaatiga ummadda Soomaaliyeedna wata magac weriyana wata ha ku keedsoomin gadaashooda khawaarij badan oo isqarinaysa jirta gadaashooda waxaa jira kuwa ummadda Soomaaliyeed iftiinka u soo baxay inay deenshaan raba dadka Soomaaliyeed waxaas way ka dheregsan yihiin dadka Soomaaliyeed dhaqaalahooda horaa loo baabaashay dadka Soomaaliyeed way og yihiin gacalkooda iyo ninka xumaanta u wada way kala garanayaan waxaan codsanaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba oo uu joogo hal waajibaad leedihiin hal ilaad wax ku aragtiin ishaas khawaarij bes lagu arkaa wax ka sokeeyo oo idin deeqa oo ka soo hara ma jiro horumar iyo wanaag kale ummadda Soomaaliyeed heeda kale oo tiro badan u qaabilsan ayaga ka shaqeyn doon waana la gaarayaa shalayba meesha maanta aad joogtaan ma inaan joogin dalkana meeshu maanta joogi ma joogin 700 oo kiiloomitir baa xora oo dhiig walaal Soomaaliyeed lagu waraabiyay oo lagu maaragtaa oo shacab iyo ciidan bale ayaa maaragtay 700 oo kiiloomitir inay xor loogu socdo kalifay oo sabab u ahaa maal ummad Soomaaliyeed canshuurteeda laga soo qaaday tiro badan ku baxay suuragal nooma noqonayso maanta in wax kale la nooga sheekeeyo mana yeelin intay madaxeena kor uu yahayna qof aan ka yeelayno Ilaahay abuurtay lama arko aada u mahadsantihiin waa casharadaas furmahan ku bixin doona hadii Ilaahay yiraahdo